gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dawladda federaalka ah Maxamuud Axmed Nuur Farsan ayaa shaaca ka qaaday inaanu hadda kadib maamulkiisa aqbali doonin in la iska aaso dadka ku dhinta magaalada Muqdisho isagoo amar ku bixiyay in meedadka dadka ka dhinta reer Muqdisho la marsiiyo xarunta CID-da Farsan ayaa sheegay in arrintan ay qayb ka tahay isdiiwaan gelinta ka bilaabatay magaalada Muqdisho sida darteedna loo baahan yahay in warbaahintu ka gadaan shacabka maadaama ay tahay arrin cusub sugnaantiina la shadan soo saarnay dhimashada hadda dambe waan diidaynaa dadka la iska aasahayo waan diidaynaa sharcigan ka soo rogaynaa inaan qof aan soo marin CID mayd aan la qorin inaan la aasi karin waa inuu taasay hay Soomaa inaan la aasi karin may sababtoo dadka hadda la dilaayo la iska aasahayo oo identity lahayn qofka dhintay waa inuu yeeshaa magac inuu yeesho taasna waan soo rogaynaa marka arrintani waxaan rabnaa in si positive ah meediana inuu si positive ah utarjumo waxay tahay meeshan u socono dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa si aad u hadal haya warka ka soo baxay Farsan ee ah in qof walba oo xamar ku dhinta meedkiisa la marsiiyo xarunta dambi baarista ee CID-da siyaasiyiin ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qorshaha u wada Farsan ku tilmaamay mid khatartiisa leh oo u saciyanaya dhammaan wadamada cadawga ku ah Soomaaliya si ay ugu sahlanaato macluumaad ku aadan inta qof ee maalintiiba ku dhimata magaalada Muqdisho siyaasiyiinta in magaciisa loo adeegsado warbaahinta kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa inoo sheegay in hawsha uu wada Farsan ay soo dejiyeen hay'adaha sirdoonka ee reer galbeedka ay ugu horeyso tan Ingiriiska ee MI6 oo kuwaasoo doonaya buu yiri inay ogaadaan inta qof ee ku dhimata xamar maalintii daada u badan ee dhimata iyo waxa sababta u ah siyaasigu waxa uu sheegay in haddii sirdoonka shisheeyaha helaan tirakoobka dadka jooga magaalada Muqdisho noocyadooda tirada dhalinyaradooda iyo inta maalintiiba dhimata waxa aad u sahlanaan karta in magaalada